عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي qiimaha sharafta leh kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. badanaa dadka guulaystay waa dad dadaalay noloshan aan isku dhiibin xitaa markay ku fashilmeen qorshahooda. haddii aad leedahay hadaf weliba uu kuu qoran yahay kuna hamiso wax xaqiiqo ah inaad gaarayso guushaasi, shaqo walba oo la bilaabo waxay ku dhammaataa laba miduun: in lagu guulaysto ama in lagu fashilmo. taasi daraaddeed muhiimaddu maaha inaad adigu ku fikirto in labadaasi midkood. muhiimaddu waa inaad ka cabsanin ood shaqada isla haddaba bilowdaa. cabsida badan waxay kaa reebaysaa gaadhidda hadafyadaada. ha ku mashquulin cabsiya inaad ku fashilantay. inta badan dadka guulaystay waxay hurdada ka toosaan waqti hore. haddii aad rabto inaad isbeddel degdeg ah samayso, waxa muhiim ah inaad hurdada aad ku daahin, aad xilli horena ka kacdo. haddii aad ku dhaadhiciso ruuxdaada inaad tahay qof hogaamin kara nafta u horseedi kara guul, iyo waa inaad lahaataa mowqif adag iyo howlkarnimo. taasi waxay kuu sahlaysaa inaad noqoto shaqsi hadafkiisa ka midho dhaliya iyo yoolkiisa. markaan dib u jaleecno qisaska dad iyo uga guulaysto oo dhan, waxay soo mareen nololtii ugu darnayd abid. markaad u fiirsato habnololeedkooda, waxaad is odhan doontaa may ahayn bani'aadam kuwani adkaysiga iyo dulqaadkooda ay soo mareen awgood. waxaad aragta oo ku soo koray rafaad, silic, darxumo, hoyla'aan, hinla'aan iyo wixii la madaata, balse maanta gaaray heer darajo sare, kuna nool nolosha tan u saraysa. waxayna ku nool yihiin nolol raaxo leh oo aysan ku noolayn malaayiin dad ah ood adigu ka mid tahay. waxaa intaasi keenay sabarka iyo dulqaadka ay muujiyaan nolosha. haddaba adigu socdaal si aad u gaadho riyadaada, samir iyo adkaysi yeelo. qaar ayaa kuu sheegi doona inaad awoodin ama aad halis gelayso, qaarna waxay kaa maseeri doonaan inaad heshay dariiqa noloshaada. ugu ogolaan inay joojiyaan safarkaaga. intaan ayaynu ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta. waxaan falataad muuqaalkan idka hesheen idinkoo mahadsan. muuqaalka noo like gareeya, noona sheer gareeya. fi amaanillaah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.